kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada waraysi kooban oo aan la yeelan doono maxamed siciid cabdi BK oo aan kula yeelan doono xarunta dhexe telefishinka Home Cable TV ku leeyahay magaalada Hargeysa. maxamed marka ugu horeysa ku soo dhawo telefishinka Home Cable. ayubaad baad mahadsantahay Home Cable TV na waan ku dhawahay masha Allah waana noo hambalyeynaya waa meel aad u qurux badan Home Cable waan ku dhawahay. maxamed su'aasha ugu horeysa aan rabay inaan ku weydiiyo maanta waxay tahay ya kugu dhiirigelin inaad fanka ka baxdo. cidina iguma dhiirigelin oo laakiin family-ga hooyo iyo baan aad u nacbaa laakiin dar ilaahay baan uga baxay. dar ilaahay baan uga baxo wuxuu ifiya aakhira midna kuma wanaagsana marka sidaa darteed baan uga baxay fanka. dar ilaahay baan uga baxay. markii aad ka baxaysay fanka asxaab fara badan baa jirtay oo aad wada fanka ku wada jirteen iyaga ma u sheegtay ka bixitaanka fankaaga? maya ma waxaa dar ilaahay uga baxayso cidna looma sheego cidna lama soo socodsiiyo go-aanka keligaa baa la gaadhaa marka wax allaaliya wixii aad hor ilaahay u samaynayso cidna lama socodsiiyo ayuu horuun baan uga booday masha Allah ilaahayna way samaysiiyey. bal isbarbardhig ku samee maxamed oo noloshaadii hore iyo tan cusub aad imika bilowday. iskuma dhawa waa cadaan iyo madow bay kala yihiin. cadaan iyo madow bay kala yihiin oo marnaba isuma dhigmi karaan. tii hore fan caan unbaa lagu noqdaa laakiin dhaqaale lagama helo ifi aakhira midna kuma fiicna horumarkiisa waa fanka Soomaali oo dhan baa asaas ah. marmar baan isaadaa maryaabihii ugu dambeysay abwaanan aad u jeclaha oo la yidhahdo Sidiiq Barmad baa wuxuu ii dhiibay guriga intuu igu yimi tuduc maasa ah dabadeedna heesahan aan u qaaday marka waxay ahayd la-aantii lama jireenow la-aantii lama liqeenow libdhada iyo meerayaasha 6 maalmoodkay ku taago liisaankaygana afbarayo awooddaad iyo laxaadka waxaan ka arkaa la yaabka cadka iyo lafaha jirkayga dhammaan waxyaha ludayda naftaydana waa la ciife rabbow laabtayda daafac libaantana igu hanuuni ladnaantana ha igu hoojin qalbigu liicliic ma waayo iimaan wuxuu rabaa shaydaankuna wuu lulaa loolina wuu igu wadaa ruuxii uu laba dibleeyo haddaanad adigu ka loodin cadaabuhu way liqaaneen rabbow laxodkayga nuuri ludaydana naar ka baaji ayuu markaasaad badmudeenaan sii daacistay masha Allah marka ilaahay wadada toosan buu igu hanuuniyey fankana cid igu dhiirigelisay ka bixitaankiisa ma jirto dar ilaahay baan uga baxay hooya aad u nacbay xaasuna ma jeclayn marka sidaa darteed waan ka urursaday. waa tahay maxamed dad yow fara badan oo aad ku taageeri jiray waxay isweydiinayaan maxamed markii hore dhaqaalaha waxa uu ka heli jiray fanka imka xaguu ka helaa maxamed dhaqaalaha? raxmaanka Allah rasiqa bixiya ruuxna kuma raaga ruux kale waayo ilaahay baa bixiya meeshuu doono ku soo marinaya umad buu kugu soo dhiibaya shaqaad heli kartaa ayuu sideeda banaadba fanka lagama heli jirin dhaqaale bulshada Soomaaliyeed ayuu ku tiirsanaa dhaqaalaha qofku oo min wax ku keena nin wax ku siiya in show kula qaabay fanka Soomaaliyeed waa lacag lagama heli jirin laakiin sidana afsaaq badan ba waayo waxaad hor ilaahay uga baxda albaab kala ku furma marka qof lacag sitaaba kula doonaya ku imanaya sadarteed ba xajka macawaa la igu sii ballan qaaday ma sheegay laakiin qofkii ballan qaaday masha Allah dad yow fara badan waxay isweydiinayaan oo taageerayaashooda ay ku jiraan maxamed ma laga yaabaa fanka inuu ku soo noqdo? ayuu aad baad u mahadsantahay lagama yaabo inaan ku noqdo waayo meel lagu noqdo maaha eeg markaad eegto horaan u soo sheegay waxaan hor ilaahay uga tegay oo aan ilaahay isu dhiibina karaamadayda ku lumin maayo saarkii markii hore igu jireen daweyga baay marka dadka caynkaana ma ihe go-aankayga waa mid meelaan ku laabanaya maaha. taageerayaashaadii markii aad fanka ku jirtay ku taageeri jiray iyaga maxaad leedahay? waxaan onayaa soo raaca taageerayaashu waxaan aad ka usii jeclay kuwa khayrka igu taageerayaashu meel boo jiraan taageerayaashayda meel kasta joogaan aad baan u salaamaya taageerayaashu waa inay soo raacaan khayrka ku soo raacaan. kugu xidhnaa waqtigii fanka iyaga weli ma jeceshay? waan jeclaa waxaan onayaa soo raaca
xaggan kaalaya xaggana runtiya tan ilaa iyaga tani waa tii xaqiiqda ahayd waxyaabo badan oo nolosheena ka dhiman ayaad ka fahmaysaa maasha allah wadadhe xulad bay ahayde tanaa saxdiya soo bayda waata maxaad waxaan jeclaan lahaa inaan sidoo kale ku weydiiyo axmed biif oo aada hore fanka uga wada tirsanaydeen iminkana dacwadda aada wada wadaan iyo dhiirigelinta dhalinyarada waay waxaa jirtay waqtigii aad fanka kuda tirteen mar uu kasoo degay magaalada hargeysa waay axmed biif waxaa lagu xiday magaalada hargeysa xadhigaana waxaa la yidhi waxaa ka dambeeyey maxamed saciid cabdi biif arrintaasi maxaad ka leeday iyada wuxuu yidhi wixii ka qabsaday cabaase la geeyey oo lee caddan baanan baayicin ninkii yidhi ma garanayo laakiin kolla wax dhibaato dhacday ma bahi axmed khayr waan salaamayaa saaxiib aada u qaali ah nin aada u wanaagsan qalbi fiican weeye berigii aanu nimanka kale ahayn baa isagoo isaga iga cansana axmed biif iga cansana deedna reer dubay buu ahaa anigu waxaan joogay markaa puntland boosaaso garoowe anigu puntland baan u badnaa inta badan dabadeedna saddex heesood bay ahayd armu iyo dilaa cishqigu jacaylku hadduu cuslaado curuuqda iyo dhuuxa gaadho malaha cashar iyo dabiib erga caashiq oo aqalkaagii timi maxaad oran lahayd saddex heesood bay ahaayeen markaa waxaan ku idhi war ninoo labana qaado midna ii dah tee baan kuu daayaa buu igu yidhi armu iyo dilaa ii daa baan ku idhi saddexda kale labada kale qaado wuu soo wada tumay dabadeedna adigu dhalinyaranimo fanko aanan caan ku ahayn waxyaaba badan bay qaaday dabadeedna ilaahay ha u naxariistay saqadhii dibad oo markaa nool marka anigu qaybta wacyigelinta booliska baan ka tirsanaa booliska somaliland dabeedna taliya inta badan lama heli jirin laakiin habeenkii markuu roondada marayo waad helaysa halkaas baan kula kulmay lambarkaygaan u sheegay askari inaan ahay dabadeedna warqad yaroo boonaa buu qoray teegara oo markaas saldhiga dhexe haysta buu iigu dhiibay dabeedna axmed diif waa la isoo xiray isagoo show qabanaya baarnaama meel ayaan ku qabanaya dabadeedna saaxiibkii si xun baan dee arrin fool xun bay ahayd aan sameeyey dabadeedna markii dambe waxaan ka dabageeyey raaligelin waa casumay youtube-kay ku jirtaa gurigeygaan ku casumay ilantayda yar maliba najax baa u gelinaysa faraawil heeso badan oo xaal marina baan bixiyey dee xarigaasi isagoo wanaagiisii aan badiyey mar kastaba aan sii badiyey dee haddana iminka u dambeysaan weydiiyey markaan wacyigelinta sidnay aan ku ihi maanta waan ku faraxsanay axmed bifo inagoo aan show inoo dhegsanayna ee maxaadiri laakiin ay inoo dhegsan tahay ma laga yaabaa caloosheena wax ku hayso maya buu yiri saaxiib qaaliya baa tahay markaa ninkaa wixii hore aan yeelay wanaag baan ku bedelay maasha allah laakiin marka laga imaado maxamedow intaasi aad sheegtay ma waxaa jira dareen gaara oo ay heestani kugu lahayd oo aad dee waxaasoo dhan u sameynaysay heestani heesta gunteeda nu dhaadhacaynaa waa ina shaaca ka qaado waayo waxaad nin ku xidhay dee waxaa la yarmaa marka heesaha badankaa berigaan qaadi jiray ninka kale ahaa ilaahay uu iga madoobeeyey badankooduba wada qiso midhan bay ahayd wada dhimasho wada dhaawac wada jacayl wada marka dadka sirtoodii ma sheegi karay waa dhibaato weeye oo af daboolan waa dahabali marka ma sheegoba qisada laakiin armu waa sheegaya armu magacyada sheegi maayo qisadu waxay ka dhacday boosaaso heesta magaceedu wuxuu ahaa armu iyo dilaa cishqu dabadeedna waxay ku dhacday ninaanu saaxiib nahay ilaahay ha u naxariistay shay miraa laxan ka saaray bashiir faarax guray nin macalin isna waxaan aada ugu fiican baan wada joognay marka waa qisay ahayd wax waliba daboolkay ku fiican yihiin oo aada u dee dhibaato badan oo inanku ka tegaysaa gabadhu dabadeedna adigu dee waa taxano dheer laakiin halkaasaynu ku daynayna marka adiga dareen gaara ku meelahayn ee qisada heesta aada u jeclay darteed baad u sameynaysaa waa tahay waxaan sidoo kale ku weydiin lahaa maxamed fanka markaad ku jirtay ee aada bilaabeysay qof walba waxau dhahdaa qofkaas ama hebel ama heblaayo ayaa aada iga taageeray soo bixitaankayga ma jirtaa cidan maanta halkan uga mahadnaqayso oo kaa taageertay soo bixitaankaaga dad fara badan bay ahaayeen beriga ninka kale ahaa halkanaynu fadhino lamber 1 bay ahayd home cable tv waxaan xasuustaa farxaan xaaji cali aad baan u salaamayaa inan qaaliya
oo halkan ka shaqeyn jirtay nimca samriye aniguna aad baan u salaamayaa nimco samriye oo runtii halkan igala shaqeyn jirtay Ah, weli maasha qaali Allah. anagu ahay Ah, home cable tv meeshii aan Aad ka baad soo mahadsantahay. shaacabaxana bixi wax la qarin karaya maaha maasha allah ayuu maxamed bk tani intii aad fanka ka baxday waxaa sidoo kale lagugu dhahdaa maxamed mubaarak waay bal maxamed mubaarak yaa kuu bixiyey mubaarak waxay bixiyey sheekh aada u qaali ah sheekh aadan sunne baa i bixiyey marka culimadu magacyo badan bay igu yeedhaa maxamed mubaarak maxamed barako maxamed siraaq maxamed nuur maxamed khadar marka bkeyga waa naanays marka intaba waan ku yeedhaa sidii markii hore la odhan jiray xabiibi malaayiin hanti qaran dee magacyada la odhan jiray bk iyada raalli ma ka tahay in lagugu yeedho imika bkeyga yaraantayda waan kula baxay dee bakeri buu ahaa magaco waa naanays dhib kuma qabo naanaysina yaraan haddii kugu raacdo weligeed ka hari mayso bkeyo maad soo jiisanaysaa marka laga imaado ciyaaraha sportska ma daawata maxamedo ha arsenal baan aada u taageera kooxdeeda aad u jeceshay arsenal baan aada u taageera maasha allah kooxda arsenal maxaad ku dooratay waxaan ku doortay sideedaba ciyaarteeda waan iska jeclahay ama ha laga badiyo ama ha badiso sideeda kale garoonka lafteeda waxay geeyey saaxiibkay qaali ah oo aan ugu tegayba london dhowr jeer oo imarat tiinka laftiisa wax ka soo qaatay garan ay bk ku taalo markaa sidaa darteed waan tiinka aad baan taageera waxaa jiray sidoo kale laba safarba dalka ingiriiska ku tagtay gaar ahaan magaalada london iyo guud ahaan dalka ingiriiska waan gartay. waxaad la kulantay sidaad imika sheegaysayba ciyaartooyga caanka ee dhanka ciyaaraha orodka Waay. maxamed faarax oo loo garan og yahay mo faarax Waay. kulankiina adigii mo faarax ka waran saaxiibkay qaali isaga iyo xaaskiisa iyo ciyaalkiisa halkan aan ka salaamaya mo faarax waa nin orodyahan oo caan ah ummadda soomaali meel kastay joogtana aad baan u salaamaya waxaan leeyahay ninkaa taageera weliba waxaa ku taageertaan waa nin calaamadda islaamka ku faana maasha allah saaxiibkay qaaliya waana nin soomaalinimada wax weyn usoo hooyey marka meel kastaa joogtaan codkiina ku taageeraan alla ugu dambeyn maxamed waxaan jeclaan lahaa inaan sidoo kale ku weydiiyo asxaab fara badan baa jirto aad fanka kooda tirteen waay oo dee qaarkood laga yaabo inay imika ku daawanayaan waay yaad jeclaan lahayd amaba aad ku dhiirigelin lahayd iyaguna inay fanka ka baxaan dad badan baan odhan lahaa horta qofka xaggaa qofka xaggaa ka shidan baa xaggana ka shidnay gabdho badan baan odhan lahaa iyo rag badanba waxaan ugu horeysin lahaa farxiyo kaba yare waxaan ugu horeysin lahaa naste xayndho lakaxaad wacays iisoo qabo hodan cabdiraxmaan dheere ragga waxaan ugu horeysin lahaa xasan dhuxulaab saalax axmed weli ibraahim maxamed furunle iisoo de horta intaa horta waan xasuusanay Dhammaantood. intaa waxaan odhan lahaa dhammaantood bal saa u soo kala horeysaan ka kaalay meesha waxa mayaalo waan isu la aragnay intaan magacaabayna bilaa caleyk idinku ugu soo horeeya dadka waatay maxamed waxaan ku weydiin lahaa iyaduna su-aal dadku inta badan aada isu weydiiyaan had iyo goor fanaaniintu marka ay ka baxaan fanka waay sidaad wada og tahay waxay dhahdaan heesahaygoo dhan hala dhilidgareeyo amaba hala tirtiro waay sidaan wada ognahayna dee heesaha waxa fanaanku keliya male oo sidoo kale dal mulaxankii baa jooga Ha. iyo abwaankii iyo ereyada tumay Ha. iyo musishankii iyo muusigii garaacay iyadoo heesta fanaanku aanigu keligii lahayn mala qabto fanaaniinta fanka ka baxda in ay idhaahdaan hala tirtiro heesahayaga ni way fiicantay waayo markasta heestaadii markii la dhegeysto dembi baa kugu socda marka anigu waxyaabo kale la damacsana inaan ku sameeyo kowdhi waayo bulshada iminka haddaan usii sheego waa laga diyaar garoobaya waa ruugi hal mar baan rabaa inaan ka saaro waxaan leeyahay hees aan qaaday mar baan doonaya in hawadaba laga waayo insha allah ilahay wuu ii rumaynaya waayo aan kugu celiyay maxamed waayo heesaha Ha. sidaan wada ognahay dee fanaanku keligii male waayo dad iyo fara badan baa jira iyaguna kaa caawiyay sida mulaxanka muusishanka Haye. iyo abwaanka haye miyaad aaminsan tahay in fanaaniintu fanka markay ka baxaan in heesahooda la tirtiro maadaama dee aanay fanaanku keligii heesta lahayn ay jiraan dad iyo fara badan oo ka caawiyay ayagoo way fiicantahay in fanaanka wixiisa la tirtiro heesihiisa aan la dhegeysan laakiin tashi baan gelaya anigu maadaama aan markii hore abwaaninta kasoo qaatay nimankii waxaan oranaya war waxaasa inagu socda sidaa iyo sidaa dabadeedna markaad hoosta kasoo dhamayso dabeedna ilaa gogla soco marka arrinta way dhammaanaysa
dadyo fara badan waxay isweydiinayaan ha maxamed fanku ku jiray aad baa loo jeclaa fankii uu ka baxay mustaqbalka xaggee ayuu socdaa maxamed aad baad u mahadsan tahay mustaqbalku horta hor ilaahay markaad uga baxdo fanka waxaad la kulmaysaa wax fiican wadadan aan la kulmayna wadada aada u qurux badan dad wanaagsan waad qaboobaysaa dee nuurkuna wuuba iga muuqda wax isbedel weyn baaba igu dhacay dee intii dadku ay arkayaan waxaa ii qorshaysan goob ay culimada ku muxaadareyso hore waanu sheegay iyo masjid waayo masjidka lagama maarmayo marka muxaadarada loogu jiro dee marka laga baxo salaadii baa taagan marka masjid iyo goob lagu muxaadareeyo inaan xoogayga ku dhiso dadkuna ila dhisaan waayo taageerayaasha ila dhisaya maasha allah goobtii meel waan helay laakiin meel munaasib oo aada u fiican baan raadinayaa dabadeedna markaan soo helo markaasaan bulshada usoo bandhigaya iyo qiimihii ku baxayay haddii ilaah yidhaahdo mustaqbalka saasaan isleeyahay waxaan isleeyahay gaadiid samaacada saaran yihiin meelaha dadka ku badan yihiin intaad samayso dowladdana kala kaasho oo dee cid ama ganacsatadayaasha shirkadaha leh ilaahay wax siiyey ay igu taageeraan waan dadka ka wacyigeliyo inaan u sheego dadka wadadan inay fiican tahay anigoo su-aashaada wacyigelin uga faa'iideysanaya ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto waxaan idinka codsanaya ama aan idiin sheegayaaba wacyigelintu waa wax inaad yar dhegeysato way fiican tahay qabyaalada social mediaha dhibaatada uu leeyahay sida tiktoka waxyaabaha bulshada dhaawacaya ee diinteena laga soo gelayo o dhan ka tigtoonaada si aa u muujiseen waxyaabaha qaarkood way ugu dambeyntii maxamed waxaan ku weydiin lahaa taageerayaal fara badan baad leedahay guud ahaan deegaanada soomaalida oo dhan way jabuuti somaliland soomaaliya nfd dhammaan way gds way badidooda waxaa ka dhacaysa doorashooyinkii madaxtinimada way shacab fara badan oo ku taageerana waad ku leedahay way maxay tahay fariintaad u diraysaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto shanta soomaali oo dhan waan salaamaya maasha allah home cable t v na waan u hambalyeynaya wuu gaadhaa intaba aad baad waa t v international farxan xaaji cali iyo shaqaalihiisa iyo ayuuba hor fadhiya iyo shaqaalihiinaba aad baan u salaamaya maasha allah waxaan kula talin lahaa reer jabuuti baan ugu horeysin lahaa maasha allah waan idiin hambalyeynayaa nabad iyo nolol fiican baa haysataan dal qurux badan baa haysataan nabadiina iyo barwaaqadiina iyo wanaagiina ilaashada oo ha iska foodeynina ilaashada haddaa is tirahdaan waxa bedelana wax wanaagsan wax ku bedela baan kula talinaa reer jabuuti dowlad deegaanka etoobiya mustafa cagjar iyo xaaskiisaba ubax aad baan u salaamaya maasha allah waa madaxweyne qaaliya fikirkiisa iyo wuxuu soo bandhigo bulshada dowlad deegaanka waxaan lahaa ku taageera maasha allah waa nin wanaagsan somaliland doorashooyinkii baa soo socda bulshada reer somaliland ee qiimaha badan leh waxaan aada ugula talin lahaa inaanay dooran qof qabiil inaanay ku dooran qof dalka iyo dadka wuxuu qabanaya oo caasimadda hargeysa laydh ku xidhaya oo biyo soo sameynaya wadooyinkan jaamkaa kala sarraysiinaya doorta oo ha idinka hagaajinayo qashinka idinka xaadhaya saasaan odhanaya horta soomaaliya waxaan odhanayaa ummadda soomaaliyeed waan idin jeclahay meel kastaa joogtaan aadna waan idin salaamaya labaan idinkula talin lahaa maxamed cabdullaahi farmaajo waa madaxweyne aada u qaaliya wax badanna wuu idiin qabtay anigu tala ahaan waxaan odhan lahaa ugu celiya dib u doorta kow haddii indhihu idinku bateenaad qorshe kale keensataan oo aad isleedihiin isaga sidhaha dee ka bedela isagu wax weyn buu qabtay soomaalina waa ninka jeclaysiiyey kursiga iyo dalkaba haddaa istirahdaan bedela ciddaa ku bedelaysaan khayraha noqdo aad baan kuu salaamaya tala fiican baan bixi waxaan soo kale jeclan lahaa maxamed inaan ku weydiiyo b k maxaa loo soo gaabiyey sidii ay naanaysta ku baxdayba haddaad nala wadaagi karta horta mar walba runtaan ka sheega calisenya hadda ka hor weydiiya honkeel t v oo laga wadiyey marka
bakeeri weeye shaaha cadayska ah yaani geelahan aad ugu xumaa mar kasta waanan cabayn marka bakeeri buu ahaa magacu marka saa darteed waxa laga soo saaray baad iyo kaadi BK saas lagu yiri marka binkiina mu ahayn magac kale caynkaana mu ahayn bakeeri umbu caanimada ka hor waxaad lahayd asxaab aad u fara badan way hadday noqoto deegaanadii aad ku soo barbaartay iyo imkood halkan ku nooshahayba kow laba saddex wax ma ka xasuusan kartaa magacyadoodii adigoo halkan ka salaamaya asxaabtii hore wallahi qaarna way dhinteen allah yarxam allah uu naxariisto laakiin waxaan ka xasuustaa Axmed Cali Yusuf Joof Cali Shiine waxaan ka xasuustaa Ganda waxaan ka xasuustaa Ismaaciil Walalac Ganda wuxuu ku nool yahay ha waxaan ka xasuustaa isoo qabo nin Maxamed Ali la oran jiray qaasin jaamac xujaale muqdisho jooga dee asxaabteydii hore iyo asxaabteyda dambe way fara badan yihiin lama tiri karo ma sha Allah dan saado wada tilmaan dadka bulshada badan baan ahay marka gidigood waan wada salaamaya idin kala garanayna guuleystaan ugu dambeyn su'aashu dambeysaan rabeen ku weydiiyay maxamed waxay tahay taageerayaashada ku kala sugan guud ahaan caalamka maxay tahay fariintaad kaga tagaysaa maanta waxaan leeyahay cis iyo sharaf ku noolaada meel kasta joogtaan laba walax ilaashada waxa ilaashataan nabadiina iyo noloshiina diintiina aad u ilaashada oo meelaha laga soo galayo dhanka hortaga waxaan kula talin lahaa cudur khatar jira oo faafa laakiin dadka weesada qaba inta badan kuma dhaco baa leeyahay culimadu maana rag iyagoo ma saxdan laakiin ka tigtoonaada nadiiftu waa wax wanaagsan ku dadaala waalidka ka ducaysta waa tidaawadayaal intaas waxaan ugu eeg waraysi gaar ah oo koobnaa oo aan la yeelanay maxamed Siciid Cabdi BK oo nagula sugnaa xarunta dhexe telefishinka Home Cable TV ku leeyahay magaalada Hargeysa maxamed aad iyo aad baan kaaga mahadnaqaynaa waqtigaaga aadna siisay iyo sida quruxda badan ee aad nooga ajiibtay codsigii ahaa inaan waraysi kula yeelano ma sha Allah aad baa u mahadsantiin dhamaantiinba idinkoo isku duuban aad baan idin salaamaya Home Cable TV iyo shaqaalihiisa oo adigu ugu horeyso ma sha Allah aad baad mahadsantahay maxamed ma sha Allah daawadayaal intaas waxaan ugu eeg waraysigaasi koobnaa ee la yeelanay maxamed Siciid Cabdi BK waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa tiimka iyaguna igala shaqeynayay duubidda iyo qurxinta barnaamijka oo ugu horeeyo Cabdiraxmaan Maano Saalax oo dhanka directing-ka ahaa Maxamed Shire ayaan la beef iyo dhammaanba telefishinka Home Cable maxamed aad baad mahadsantahay aad baad mahadsantahay qolada kabradan aad baan ugu mahadnaqayaa oo maan u horeeyay ma sha Allah aad baad mahadsantahay thank you